الحمد لله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلهي ومهلا ما أنت إلهي بواكاتي سبحانه وتعالى. والله وحان آد وفرح سنهي شيخي نوين شيخ عبد الرحمن سليمان بشير. الحمد لله إن systemkii uu inoo galay oo sheekhu inoo soo galay sidaan haddeer sheegay ama hadday sheegayay sheekheena Sheikh Cabdiraxmaan Suleymaan Bashiir culumada waaweyn ee Soomaaliyeed ayuu ka mid yahay. waa sheekh Soomaaliyeed caalamka laga yaqaano, waa sheekh reer Djibouti ah, haddana ku nool dalka Canada. waa muxallil runtii oo dorasa ka hadla arrimaha caalamka islaamka iyo caalamka oo dhan si gaarana focuska u saara mawaadiic aad u tiro badan oo ugu horeyso ku noolaanshaha diinta, wanaajinta siyaasadda, horumarinta bulshada, horumarinta qofka shakhsiga, sidii loo heli lahaa qof caqligiisu furan yahay, maankiisu joogo, ka fikiraya mustaqbalkiisa, qof yeesha himad sare, si loo helo bulsho qoys wanaagsan iyo bulsho wanaagsan oo ummadda hogaamin karta. Sheikh Cabdiraxmaan Suleymaan Bashiir, soo dhawow sheekh. alxamdulilah, jazaaka allah kheer walaalkay sheekh jawhar iyo bulshada badan ee saaxiibada aad tihiin. waan dhowahay, waanan nin mahadnaqayaa inaan caawa iyo galabta ninba saacadda uu joogaba inaan la joogno insha allahu tacaala. waa mahadsantihiin. malay maqlaa sheekhi yah malay maqlaa ها شيخ وصحوي جزاك الله خيرا. walaalaha way ku maqlayaan. sheekh aad baad u mahadsantahay waqtigaaga qiimaha badan leh. waxaan rajaynayaa inaanan waqti badan aan kaa qaadin maadaama oo galabta aad leedahay hadduu eebayd muxaadaro kale aad leedahay. mawduucii caawa aan kuu ballaminay insha allahu tacaala ayaan jeclahay in aan hore u gallo. labadii qaybood dabcan qaybta hore in aan lectureki kaa dhegaysano mustaqbalka qoyska muslimka ah, gaar ahaan qoyska Soomaaliyeed, weliba si gaara inaan u fiirino kuwa qurbaha ku nool, annaga oo marnaba aan ka reebaynin kuwii geeska Afrika ku noolaa. qaybta hore waa taas. kabacdina su'aalo ayaan rabnaa inaan kaa faa'iidaysano sheekh, aqoontaada iyo waqtigaaga biidnillahi alkariim. waxaa marti walaalaha dhammaan caalamka meel kastoo joogtiin, waxaa marti noo ah bahda Happy Marriage Academy marti u ah sheekheena weyn Cabdiraxmaan Suleymaan Bashiir. sheekh kusoo dhawow mikrofoonka. tafadal mashkuuran, jazaaka allahu khayran. alxamdulilah, salaatu wasalaamu calaa rasuulillah. waxaan aad ugu faraxsanahay walaalkay sheekh jawhar oon muddo fara badan kala maqannahay, laakiin haddana aan wada joogno, inaan ismaqlayno, is arkayno. ilaahay baa arrintaa inoo fudeediyey, teknolojigana inoo fudeediyey. ilaahay uu biniaadamka baray, callama alinsana maa lam yaclam. marka waxaan jeclahay oon ku faraxsanahay mawduuca aad ka shaqaysid oo ah inaa horumar la gaadhsiiyo qoyska, lana ilaaliyo qoyska Soomaaliyeed iyo qoyska muslimka ah meel kastuu dunida ka joogaba. marka insha allahu tacaala arrintaas waad ku mahadsan tahay adiga iyo walaashay hibo oo iyadana gabadh agteeda qaali badan ku ah oo walaashay ah insha allahu tacaala. markaas intaas kadib waxaan jeclahay sidaas sheegtay, horta qoysku usraddu waxay leedahay ahmiyad gaara bay leedahay islaamka iyo bini aadamkaba dhexdiisa. waxaan anigu aaminsanahay siduu ilaahay qur-aankiisa nagu baray in uun qofka bini aadamka i jirin hadduunan qoysku dhex noolayn. marka waxaan oran karnaa laa wujuuda lilfardi biduuni usra. waa qaacida in la qaataa. qofka bini aadamkii laba jiritaan buu leeyahay. jiritaan wuxuu leeyahay physics ah oo biology ah, oo qofkan wax cunaya, ee cabaya, ee maaragtay raashin ka qaadanaya, ee safraya, ee seexanaya, waa qof. iyo qof kaloo social oo bulsho ah, oo qofka weyn ee muhiimka ah waa qofka weeyaan, ruuxda leh, ee caqliga leh, ee dareennada leh weeyaan. marka qofkaasi ma jiri karaya hadduunan jirin qoys. marka qofka bini aadamkii bilaa qoys jiritaan male.
اوكي اريتاسي وقاعده الا حفظها لا وجود للفرد بدون اسره اوكي maxaa yeelay usraddu waa unuga koobaad ee bulshada weeyaan arrinta labaad oo iyada qaacida ah inaan isla qaadanaa waxa weeye laa sacaadata lilfardi biduuni usra qofka bini aadamkii ma raaxaysan karo adduunka habbi kuma noqon karo haddii uunan ku noolayn qoys dhexdiisa marka usraddu iyo qoysku waxay ka qayb galaan habbinimada qofka bini aadamka ayay ka qayb galaan waxbaan ka sharxi doonaa insha allahu tacaala qaacida saddexaad inaan qaadanaa waxa weeye oo iyadna muhiim ah waxaan oran karnaa laa najaaxa najaaxan xaqiiqiyan biduuni usra qofka bini aadamka ma liibaani karo ma guulaysan karo ujeedaa ma dallici karo horumar ma gaadhi karo horumarkaasoo xaqiiqiya raalli noqda hadduuna jirin waxa la idhahdo qoys iyadna waa qaacida saddexaad weeye qaacidada afraad ee muhiimka ayla ah waxa weeyaan iyaduna inaan oranno laa tanmiyata lilmujtamac bulshaduna ma samayn karto horumar hadduuna jirin qoysas isku xidhan oo cilaaqaad qoysas haddayna jirin xidhiidh qoysas haddayna jirin iyaduna horumar bulsho ma dhici karo horta afarta arrimood markaan ka dhaqaaqno waxaan dhihi karnaa nolosha aadamuhuba waxay ku duuraysaa waa qoys marka waxa weeyaan qofku mar waa aabe waa qoys buu aabbo u yahay mar waa hooyo qoys buu hooyo ka yahay mar waa oday oo xaas buu leeyahay mar waa xaas oo oday bay leedahay mar waa inan oo waalid buu leeyahay mar waa gabadh oo waalid bay leedahay mar waa inan oo hablo walaalo ah bay leedahay waa inamo iyo hablo walaalo ah bay leeyihiin waxa weeyaan mucooy baa jirta ayay baa jirta awow baa jira abti baa jira adeer baa jira waxaa jira maaragtay bulsho isku xidhan baa jirta oo la dhahdo qoyska ballaadhan baa jira quruxda ilaahay baa ina baray wa ulul arxaami bacduhum awlaa bibacdin fi kitaab illah marka islaamka qoysku waa fidayaa ilaa halkaasu iyuu gaadhayaa subxaanahu wa tacaala marka walaalkay haddaan oranno bal qoyska mustaqbalkiisa han ka hadalla maanta waxaan kaga hadlaynaa saddex arrimood oo dhinaca mustaqbalka ah mustaqbalku horta ilaahay baa yaqaana mutlaqan tabaaraka wa tacaala waa gayb waa wax inaga laakiin waxaa la isku dayaa in la maaragtay la odraso iyadoo laga dhaqaaqayo xaaladda iminka lagu sugan yahay iyo taariikhda bini aadanka haddaan ka dhaqaaqno xaaladda qoysasku maanta ay ku sugan yihiin oo weliba qoysaska soomaaliyeed bariga afrikana ha ku noolaadaan amba geeskii amba yurub ha joogaan iyo maraykan iyo australia galbeedka ha joogaan waxa hor yuuraran waa maxay markaan aragno waxaan fahmi karnaa mustaqbalka qoyska mustaqbalkeenna qoyska soomaaliyeed haddaan ka hadlo waxa weeyaan qoyska soomaaliyeed waa qoysaska qura iyuu ku jira adduunka ee weli isasii haysta yacni adduunka markaad maanta u fiirsatid qoyska ugu dumay haddaad eegtid yurub jarmalka waxaa la sheegayaa 2050 qoyska traditionalka ma jirayo haddeeta khalaas way dhammaatay waxa weeyaan faransiiska waxaa la sheegayaa magaalada paris ilaa 4-5 milyan oo qof baa keligii nool oo guryaha ku nool waa statistic yal la sameeyey weeyaan waxaa la sheegayaa dalka maraykanka oo ah wadannada ugu fiican dhinaca qoyska furitaanku inuu tob yahay oo aad la isku furo marka qoysku waa dumay marka loo eego European ilaa uu nin Maraykana iyo rag reer galbeeda iskula tageen quraan kitaabiya u bixiyeen mawtul qarb inuu reer galbeedku dhimanayo geeriyoonayo waxaan ugu wacan waa qoys la'aanta weeyaan marka qoysku waa halista ugu jira adduunka laakiin Soomaalida qoysku maanta alxamdulillah inta badan uu is haystaa wali hadaa uu is haystaa haba la kala laalaade yani ma hal islaam loo si fiican laakiin waxa la dhahdaa in kala tag kala luqadasha dhaantay Soomaalidu dhahdaa yani inuu reerku dumo waxa dhaanta in la kala laalaado oo la isla joogo ayaa dhaanta bay yidhaahdaan marka cala ayati xaal waxaan oran karnaa Soomaaligu wali waa qoysaska sii nool ee sii jira adduunkan aanu ku noolahay laakiin taas kama dhigno qoysaskeenu way fiican yihiin sadraadeed waxaan oran karnaa saddex dhibaato ayaa hor yaala qoysaska Yurub ku nool kow dhibaatada ugu weyn hortaala si aan mustaqbalka u aragno wax weeyaan dhibaatada ugu weyn hortaala wax weeyaan asadma alxadaariya shock bay ku nool yihiin qoysaskani dhaqan bay ka yimaadeen dhaqan kale u yimaadeen sadma ku dhacday shock culture shock political shock maaragtay cilmi ah shock diini ah ayaa ku dhacday arrinta labaad ay ku nool yihiin waxa weeyaan waxayna garanayn culture-kan iyo thaqaafadan reer Yurub sidee ula falgeli lahaayeen عدم معرفة كيف نتفاعل
مع الثقافة الغربية يدنا وبروبلم سيان سكيل إنه حمان تدا وناك يجرا نقاضن واحد كلتشر كسينو حلي حمان بدن يوناك بدن بولي كلتشر وضع نظيفة مجرى وحي إلهي وضع نظيفة سبحانه وتعالى أريد صدحات هور يورتر قلبيتك قويسك كنا الوحويان وأرنتا أن ده كرنو إن جرهان جوجنا رجالبيت لكن علمي أهان يدقن أهان بريجي يقلبيت كي يو محن جدا جيس كي أفريقيا كفردنا مركا جل كي نوم بان ميلهان السعودة لكن محن نهون رقرع يرعول وميلهان إسكندر ففرديا مركا سيد حاب بروبلم هي حوق إنه هيستا أخي في الله وإخواني وأخواتي في الله أوكي أرنتاس محاكا دارك مستقبل كا سومالي دا يو مسلمين تبريغا أفريقيا كيما تجيس أفريقيا يكونوا المرايكان يوروب محا هور يورلا waxaan maanta ogahay inay boqolkiiba diraasaad ma hayno laakiin maadaama aan ahay qof consultation bixiya sida adigu baa tahay sheekh walaalka Jawhar waxa weeyaan waxaan aragnaa inay ugu yaraan 67 ka badan yihiin qoysaska burburay kala taga aad buu u badan yahay waa daahiro noqday waa muuqaal inay dadku ay dumaan okay arintaasi mushkilad bay leedahay laba waxaa mushkilada oo aragnaa oo geeska Afrika waddanka mid aragnaa in ubadkeennii iskoolada ay ka daateen in badan xabsiyada ay ka buuxaan in badan waa arintaasina waxbaa keenaya okay waxaa kaloo jira oo iyada muuqaal ah oo mustaqbalkeena ay ku xidhmaysaa waxa weeyaan arin khatar ah oo waddanada ka jirta waxa weeyaan in ay dadka dhalinyarada ah ee ku dhashay iyo waalidku inayna isfahmin languistic isku fahmaan luqadooda isku fahmaan ma jirto af Soomaaligiina way ka tageen odayaasha iyo hooyooyinkuna afkii maaragtay ubadkan ay ku hadlayeen Ingiriisiga ahaa ama Faranjiga ahaa si fiican uma yaqaanaan marka waxay taasi keentay isku dhac bay keentay faca iyo facii hore okay arintaas marka walaalahay annaka mustaqbalkeenu soo noqon doona waxa weeyaan anigu waxay la tahay qoyska Europe ku nool iyo Mareykan ku nool Canada ku nool North America oo naskade ku nool Australia waxaan oran karnaa haddii la sameyn waayo isgaad saddexdan arrimood ayaan filayaa inay ka dhacaan wadanadan kow waxaan ka filayaa inay ka dhacaan inuu soo baxo jiil mamsuuqa jiil aanan Soomaalina ahayn European ahayn mamsuuq waa jiilka noocaas ah waa generation isgaranin tiiha ku nool inuu soo baxo waan ka cabsanayaa mustaqbalka haddii la isgaadi waayo arinta labaad ee ka cabsanaya waxa weeyaan waa jiil culays ku ah bulshooyinkan uu la nool yahay oo wax ku soo daray wax badan ka qaadanaya waxna keenin anfacin jiilku ilaahay quraanku yiri kallun ala mawlah culays bulshada ku ah inuu soo baxo arinta saddexaad ee ka cabsanayo waxa weeyaan ikhwaani fillah in islaamka dhan ee sidno oo ah ilaahay diintiisii tabaaraka wa tacaala ugu dambaysay ee saxda ahayd ee marka la baado bini aadamku dhan u baahnaayeen inay ku dhamaato generationka imika aan dhalay kuwa ay dhali doonaan inay isku taagto sida Argentina ka dhacday Argentina madaxweynihii hore ee Argentina xukumi jiray wuxuu ahaa muslim asalkiisu Suuriyu ka yimid laakiin isagoo Kristaan buu ahaa aabina Kristaan buu ahaa awowgiina Kristaan buu ahaa way Kristaanoobeen marka kuwan dambana cilmaaniin bay noqdeen idan waxa keenay waxa weeyaan jiilkii ugu horeeyay ee yimid Amerikada Koonfureed Argentina iyo Brazil ee Sham ka yimid Lebanon iyo Suuriya dad muslimiin oo soo shaqo tagay bay hayeen markay wadanadaasi Isbaaniyolkii waxa ay haysteen Portugiisku laakiin maanta generation kaasi ma jiro Brazil masaajid weyn baa ka dhisan wax ku tukaday ma jiro Australia masaajid baa ka dhisnayd Ingiriiskii iyo Hindidii iyo Soomaalidii lagu dhisay dhulka ay dhiseen laakiin way dhamaadeen intahad qaar baa noqday casinohat markaas waxay ku tusaysaa waxaasi inay xataa diinta dhan annaka inagu dhamaato marka problemkaasi waxaan ka baqayaa waa taas weeye laakiin mustaqbal fiican baa jiri karaya haddii aan sameeyno laba arrimood dadka ku nool North America iyo Europe iyo Australia okay mustaqbalka fiican ee aan sameyn karnaa waxa weeye walaalayaal marka aan isla aragno inaan nahay bulsho inaan u fikirno si bulsho oo nu fikirin si kala fikirta Soomaalidu way kala fikiraan Soomaalidu waxay yihiin Soomaali Djibouti Somaliland Somali Puntland Somali maaragtay koonfur Somali Kenya Somali Ethiopia Somali baan noqday marka inaan noqono Soomaali isku dana oo ku nool wadanadan loo yaqaano reer galbeed aqliga haddaan yeelano waxaan dejinaa istiraatiijiyad ah maxay noo dana
taasi waxay nagu qasbaysaa inaan samaysano waxa loo yaqaano saantaro ama loo yaqaano unugyo ay leeyihiin dadka muslimiinta ah ee Soomaalida ah oo miskiidku uu ka yahay qayb ka mid ah laakiin miskiid aan ahayn oo ka ballaaran miskiid in la sameeyo haddii caqliga la yeesho mustaqbal wanaagsan baa soo bixi doona arinta labaad mustaqbalka wanaagsan uu ku xidhay wax weeyaan haddii aan sameeyno weeyaan iyadana inaan fahmo inuu islaamku yahay culture islaamku culture culture thaqaafa maaha islaamku maaha wax dad leeyihiin inta badan waxaan ku dhegsannahay wixii aan afrika kala imanay islaamku waa diinul caalami tabaaraka alladhi nazzala alfurqana ala abdihi liyakuna lil'alamin nadhira wama arsalnaka illa rahmatan lil'alamin إذا نقولنا ذات كلجر كوجو يهي international أو globalization أو عولمة سيدا أو أدو كوردن ما تكون ولا كرا هذا سأوفه إنه عبسيدا نجابابي وحنا نريد هذا وإن قادنا فكرة موسى أو كتجنا فكرة بني إسرائيل ما حاول هي فكرة موسى هي فكرة بني إسرائيل نبي موسى وحكوا عليه السلام رب بني إسرائيل ادخلوا الأراضي التي المقدسة التي باركنا كتب الله لكم دول كبركيسنا إلهي نقلب قلبوا قلا حبسونا اقتحموا وحيد هذين لا ندخلها مقرن حتى يخرجوا منها إلا يكسبحان عقلية المقتحم نكر نلش قلا يا لو ما هي سوق عبسونا سوق صون يعني وساقدي عيالك هيقدمني دينتو مارد لغة هرس بكجرتها ما عبس عيالك هذا وحنا مركز لغة آخرية عيال فل أي نقون يانو عبس بدل كجرته عنقيدو لكن أبدأ نكون آخرنا مسلمكم مركز تكون ولا كرا دينتي سر وحديثا كرا كالجرنا الله سمايو بأفي عن الله سمايو وحيتاي وناك وحن كبيحي لها هذا الكيغا سوكو بيو ولا الكي يا ولا الله هيغا مسلمين يدغيسانيا سوماليات مركز جوغا وحن كبيحي لها لو اريبود جيسكي افريكا كنا نقول لها جيسكينا افريكا بلشده الصوماليات waxa lagu tilmaamaa anshad imaarati bulsha fi العالم mujtamacaadka kuwa ugu fiican baa lagu tilmaamaa waa naajixiin weeyaan waa dad nolosha aaminsan weeye laakiin waa dad aan lahayn takhtiit planification male waa wixii ku hor yimaada way jiraan marka maxaa ka maqan geeskeena afrika sida annaka way nooga maqan tahay waxa inaga maqan at-takhtiit al-usri wax dhado qoysku inuu yeesho planification halkuu u socdaa halkuu imika joogaa halkuu ku socdaa halkuu ka yimiday maxaa ahdaafa ujeedooyina maxaa wasaa'il la isticmaali doona maxaa dhibaatooyinka laga hortagi doona waxaas oo dhan inooma ratibno waa arrin weyn arrinta labaad ee geeska afrika inagu haysto waxweeyaan waa dowlad la'aan iyo dowlad xumo markaa dowlad la'aanta iyo dowlad xumadu waxay noo keenaysaa inay dadku fahmi waayaan beritoona subax hadduu qofku soo kaco muxuu ku soo kacaya cala ayati xaal waxaanu idna uga baahannahay maadaama geeska afrika mujtamaca ku nool laba shay uu haysto qoyskii oo isku xidhan oo aabbo iyo edo iyo awow iyo mucooy iyo hooyo iyo ayay iyo wixii oo dhan la wada haysto ilaa arrintaa loo bedilo ficil loo bedilo oo mujtamaca loo bedilo oo maaragtay cilmi laga dhigo oonan oranon sidaa baan ahaan jirnay cilmi la diraasayey in laga dhigo soomaalidu ka faa'iidsaan arrinta labaad ee uga baahannahay geeska afrika sida mujtamaca qoyska loo badbaadiyo waxa weeyaan in aan la helo dowraad semineero dadkeenu oo islaamaha berigii hore miyiga iyo baadiyaha habeen walba semineer baa la qaadan jiray miyiga oo habeenkii marka xoolaha la soo hooyo dabka la shito ee cuntada la fadhiisanayo aabbaha hooyada awowga ayayga muciida casharay bixin jireen ubadkuna casharay qaadan jireen iminka wax way ciyaalku soo ciyaarayaan ubadku unbay soo hoydaan way seexdaan buugaantay qaataan iskuulka tagaan wax maaragtay semineer ah oo maaragtay dowlad ah oo u dhaxeeya ubadka iyo aabbaha iyo hooyada ma jirto wada sheekaysi male marka waxaa loo baahan yahay inaa ilmahana la dhegaysto ilmuhuna dhegaysto يعني إلهي لما تقول بنويالي لما تقول يوح نويالي أف قرات أنك واحد رب لي ثمان أف يدق قرات معناها واحد كده تاعي وارحد الله محمد يسمون يستمعون القرآن يستمعون القول استماع مجر بدك يسمون مركا إنه بدك اللي دقيستو شيكي ودان تاهبي ودان بروبلمية ودان إكسبيريانس كنا لصي لأنه واحد مودي أن نلوشا طبعا كسري جرين يشيء كسري جرين من مودي أن نلوشا لتاعي adiguna kutub baa jirtaa waad arkaysaa inuu caqligiisu yar yahay u qoslayo ciyaarayo laakiin ha ku qasbinin tus inaa hareerihiisa tustid u ballaadhisid wuxuu arki karayaa waa inay sheeka jirto markaa geeskeena afrika sheeka ma jirin inaa sheekada la bartaa fiican odayaashii sheekada bartaan dumarkiina sheekada bartaan halkana iyadna
sheeko badan baa jirta laakiin waxaa jira problemka weyn ee imika soo baxo ah teknolojiyadan ku wada sheekaysayno oo noqday aabbo oo noqday hooyo oo noqday ayay oo noqday abti oo noqday adeer oo saaxiib noqday oo qof wax walba uu kaga maarmay marka insha allahu tacaala waxaan leeyahay dhalinyarada caalamka joogto oo dhan maaragtay ku jirta kula xidhiidhaysa maaragtay akademigaaga ku xidhan in badan kaa faa'iidaysataa waxaan leeyahay waxaan u baahannahay insha allahu tacaala ru'ya jadiida fishin cusub waxaan u baahannahay khuda jadiida balan cusub waxaan u baahannahay iyadana project mashruuc jadiid baan u baahannahay waxaan kaloon u baahannahay inaan baranno sida looga hortago taxadiyaadka iyo dhibaatooyinka laba shayna waan uga digayaa dhalinyarada soomaaliyeed meel kastay joogaan khaasatan dhalinyarada isguursanaysa imika waxa loo yaqaano in lagu xaliyo problemyada iyo mashaakilka waxa dhacdo dudmada degdega dudmo sooma yaqaanin dhalinyaradu ma fahmayaan dudmadu waxa weeyaan xanaaqa labada waday isdiidaan in la kala dudo kala tegi la kala aamuso waxaasi xal maaha taasi waa in la iska ilaaliyo arrinta labaad ee la iska ilaaliyo ee muhiimka waxa weeyaan marka inaan qoys la dhisa la doonayo waxa dhacdo atacaali inuu mid kale iska sarreysiiyo yacni addukuriya almutlaqa waxaan u bixiyey raganimada ziyaadada faxalka doobnimada iyo culayska raganimada raggu iska doodooraan ee ziyaada in lagu xidhoobo dumarkana waxaa oran lahaa al-unsawiya almutlaqa feminismigan iyadna balaxadka in lagu xidhoobo dhexda la isku yimaado la dhahdo insaaniyiin baan nahay humanism dadnimo in lagu xidhiidho ilaahay baa qur-aankiisa noogu sheegay bacdukum min bacdin raggu waa haween bay ka yimaadeen haweenkuna rag bay ka yimaadeen laa xayaata lirajuli biduuni imra'a walaa xayaata liimra'atin biduuni rajul lama kala maarmi karayo waan isbuuxinaynaa takaamul baa inaga dhexeeya annisaa'u inama annisaa'u shaqaa'iqu rijaal ma acdama qawla nabiyina hadalkaa nebiga wax ka weyn ma jiro maaragtay dumarku sal ll slam wuxuu yidhi waa qayb ragga ka mid ah ragguna waa qayb dumar ka mid ah qur'aanku cilmigaa uu nebigu sheegay maanta cilmigaa sheegay soo maaha yacni korosoomyada qofku ka samaysan yahay marka maanta la baaro waa 3 raganimo ah oo hooyadaa ka yimiday iyo 3 aabbaha ka yimiday iyaa ninka ku wada dhex jira gabadhana waxaa ku jira 3 aabeed ka yimiday naagu walba waxaa ku jira qayb dhina nin walbana waxaa ku jira qayb naagnimo ah ilaahay baana ku abuuray tabaaraka wa tacaala lianna waxay taasi daliil u tahay inuu asalkeenu ahaa aadan iyo xawa oo korosomkeenu saa usoo kobcayay oo ilaahay yidho min kulli shayin khalaqnaa zawjayn laba baa la ahaa bilowgeeni labaa laga yimiday qiyaamahana maaragtay ilaa waida nufuusu zuwijat laba la isku raaci doonaa wajazaakum allahu wabaasatiin ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله شيخ عبد الرحمن سلام بشير إلهي هاكو بركيو جزاك الله خيرا لو 10 دقيقة كير وحن أمالينا يا إن قاب كموضوع آد نوغو جح ذي إلهي خيرك سيو هذا صوبا دكتي إن أي تحي قاب بحثي اللي قسمين كرو طبعا أنا هابي مارج أكاديمي أما هيئة أو نقندون فاميلي هابي فاميلي أكاديمي وحن أدو فائدة سنين إن بحوثا قاب كاس لو فائدة إن شاء الله تعالى شيخ أنت أنا نقتقين كلي ولا لبضن أيا كجر عاوة قاركود علوميهين قاركود أرضيهين قاركود باحثيهين علوم kala duwan ku takhasusay oo nala jooga oo magacdooda halkan aan ka arkay qaarkood wariyayaal ay yihiin intuba aad bay u mahadsan yihiin jazakumullahu khayran waxaan rabaa in aan laba arrimood isdul taago sheekh khayr allah ku siiyo waxaan noo tilmaantay yacna haddii aanan la helin qof fardi ah oo wanaagsan oo usro wanaagsan ku dhex jira oo mujtamac wanaagsan ku dhex jira in noloshu aynan ficnaanin in aynan jiraynin maxaan ku idhaahdaa nolol farxad leh nolol degan nolol xasiloon nolol ay cadaalad ka jirto nolol wax walba ay u dhammaystiran yihiin in aynan jiraynin marka waxaan rabaa in aan ku noqdo sheekh dhowr arrimood oo tilmaantay oo cajiib ayaa jira runtii aadna ii taabtay kow marka la fiiriyo problemyada ka jira cawlamada ah ama maaragtay caalamka oo dhan maanta haysta
hadalkaaga ugu dambeysay waxaa ku jiray technology-ga sida uu maaragtay u saameeyey qoysaska iyo nolosha iyo qofka oo ka dhigtay mararka qaarkood inuu qofku ka go'o cid kasta oo dhan uu ku xidhnaado aaladdan maaragtay electroniga waxaa marka taa iigu horreysay qodobadii aad tirisay ee ahaa shoogga hadday tahay maxaan ku dhahday dhaqan markii lasoo guurayay dhulkii laga yimiday ee dhulka qurbaha la yimiday shooggii dhaqanka shooggii diinta shooggii bii'ada iyo maaragtay environmentka waxaa tilmaantay marka la fiiriyo mustaqbalka sida hadda loo socdo diraasada hadda jirta marka la eego dadku siday u dhaqmayaan inay cabsi jiri karto maxaan ku idhaahdaa jiilka soo socda jiilka ku sii xiga inay dhici karto diintoodii inay dhumiyaan arrintaasaan rabaa in aan linki kaga dhigo amaan ku xidho sheekh arrintii aad tiri geeska afrika dadka jooga iyo dadka ka soo guuraya halkan yimiday fursad ayaa jirta in maxaan ku idhahdaa laga faa'iidaysan karo oo ah in wax la baran karo in cilmigii maaragtay mutawafir uu yahay oo maaragtay available uu yahay uu jiro jaamacaadkii inay jiraan culummadii inay joogaan sida adoo kale iyo maaragtay kuwo badan oo lamid ah seminaarro in la tago oo cilmiga in la qaato sheekh sidee loo waajihi karaa taxaddigan kow innaga soomaali markaan nahay waxaan ku xidhannahay inta badan diin dadkeennu aad bay diinta u jecel yihiin meesha aan toogno ee qurbaha ah marka laga hadlo adigu hadda aad joogto Canada Maraykan Australia anigu halkan UK aan joogo Yurub dad badani waxay ku xidhan yihiin culimada Soomaaliyeed meel kastay joogaan waxaa loo baahan yahay baan isleeyahay oo mararka qaarkood ciriir uu ku jira culimo galbeedka ku kortay ama wax ku baratay ama dhulkii intay ka timidday dhulkan timidday oo degtay fiqul waaqic intay fahmeen jiil soo saari kara arrintaas sidee mustaqbal ahaan loo badbaadin karaa jiilka laga baqaya in ay dhumaan kuwa ay sii dhaleen inay diinta ka baxaan taasi waa mid see loo heli karaa dad culimo ah oo ka yimid geeska Afrika ama ka yimid caalamkii aan ku noolayn halkana ku noolaaday muddo jaamacaadka ka soo baxay sidii doctorkii maxaan ku leedahay habeenka dhawada ka sheekeynayay Mohammed Shinqidi reer Mauritania ahaa tu Maraykan wax ku bartay dib ugu noqday dhulkiisii sidee loo heli karaa si loo badbaadiyo jiilkaas arrinta labaadi waxa weeyaan sheekh waalidka halkan jooga ee isagoo ka go'an Afrika isagoo ka go'an meesha uu ku nool yahay Afrika ku xidhan aqligiisu ilmihiisiina ay koreenay isagii ilmihiisii ay isla soconna jaanibkii tarbiyada ayay galaysaa baan rajaynayaa sidee isagana loogu baraarujin karaa meesha uu ku nool yahay inay qurbaha tahay ee aynan ahayn geeskii Afrika isagoona laga goynaynin isla markaa in uu geeska Afrikana ka walwalo oo wax u taro oo wax u qaban karo fadal sheekh jazakallahu khayran waxaan ku baraarujin lahaa walaalaha in ay naga soo wacaan WhatsApp-ka iyo maxaan ku dhahday aymoga telefoonka aan soo qornay insha Allah walaalaha culimada ee nala jooga aqoonyahanka nala jooga insha Allah ta'ala sheekha marka aan su'aalaha aan weydiino idinkana insha Allah ta'ala fursad baa idin siin doonaa barakallahu fiikum fadal sheekh jazakallahu khayran alhamdulillah walaalkay sheekh Jawhar amba Jawhari sama imka lagu yaqaano waad mahadsan tahay waxaan kaloon aad ugu mahadnaqayaa walaalaha ku jira ii sheegtay aqoonyahanka culimada iyo murabbiinta iyo dhammaan maaragtay qalilanoolayaasha iyo saxafiyiinta intaba waan aad baan u salaamaya dhalinyarada aadka maaragtay u nashidka ah ee u active-ka ahna waan salaamaya insha Allah haween iyo ragba aad baan u jecelahay ilaahay dartii baan u jecelahay subxaanahu wa tacaala walaal waxaan jecelahay inaan inta aan ka jawaabin su-aashaada muhiimka ah labada su-aal ee muhiimka ah inaan idhaahdo horta qoysku waa 4 nooc maanta 4 nooc ee qoysku yahay inaan wax ka yara sheegaan jecelahay ay qoys adduunka joogo dhan qoyskayga kamid ah qoyska Sheekh Jawhar baa kamid oo aan u maleynaa inuu ku jiro isagoo number 1 kuwa baxaya waxaa jira waa E A iyo P iyo C iyo T ma siinana moogtahay marka qoyska naajixa ah qoyska waxa la radaa waxaan qaadanaynaa fikrad la raado السعادة والنجاح waxa la jirta صح adduunka waxaa jira waxa la raado qof happy ah waa saciid farxad iyo guul buu ku noolyahay farxad waa happy boneex bina raga afka Djibouti ugu guumeystayna marka
سعيد بعربته ترى هذا أنا كنا واحد راحوا سفي عنه بونو لي قال هذا إن أمارة أقول له كنا هابي بهذا صح حجر الشخص هابي أما قوس هابي أجرا وسعيد قوس كاسي مركا يوحجر الفكرة لهذا ناجح هو قولوي هابي هو يكون مسكين معها waxaa dhici karta inay kala duwan yihiin waxaa jira naajix qof oo iskuulka ka gaaray darajada ugu sareysa master iyo wixii ka dambeeya qof oo lacag ururiyey maaragtay bishii shaqaynaya 6,000 7,000 oo gini oo afkiini weyn UK dhulkana 4,000 5,000 6,000 oo dollar shaqaynaya waa yani waxaad oran kartaa waa naajix xagga shaqada oo qof waxaad arkaysaa matalan guryo dhistay qof baabuur iibsaday وناجح بعد هذا وانا نكاس وان الليباني ويان أبد وناكسن دلي وناجح اوكي محمد ماشي يلا وحاجره السعاده وهبيه هي النجاح اوكي انت انا اقول قويسك وحنجعلها هنا كلا صارنا ليس كل سعيد ناجح وليس كل ناجح سعيد صحوي نكاستي وهبيه كما دغنو او ليباني ادونك نكاستي ليباني كما دغنو هبي بو ياي كما دغنو نعم اوكي مسلفه انا سؤالتها اسمعها نعم اجر مانتا رجوا وين او غوليستي ادونكا لكن كنين كسيخدا كنين كتوسا او هبي انين اساس وحاجر قار ان وحبا هيسن او عاوا انو قدا cunaya aan ogeyn laakiin habiya oo miskiinka dhex fadhiyo darwiisho wadaad oo farxaana ayaa jiro markuu saa dhinaca u dhiga dhulkaba bila maartay hurdada la soconayso oo raaxada wajigiisa ka muuqatay farxadda alla yaabis okay bila kaliin saxaday sax weey annagu markaa maxaan rabnaa ma inaan habbi noqonaan rabnaa mise waxaan rabnaa inaan najahno annagu markaan nahay dad muslimiina quraanku wuxuu nagu amray inaan labadaas ku keeno inaan noqono sucadaa wanaajixuun maxaa markaa mideeya assacaada waxaa dhahdaa af carabiga iyo annajaax halkay ku midoobaan waxay ku midoobaan kelmadda la dhahdo alfawz quraanku bixiy amba alfalaax يا كتابك إلهي بارا سعادة ويكون سؤال القرآن وأما الذين سعدوا وصفحنا نعم ويكون سؤال القرآن كلمة السعادة لكن القرآن كأنكم سؤالون كلمة النجاح كلمة النجاح وكلمة عربي وصحة الصومالي أنا وأقول لكن وكلمة بروتستانت كما كان كهل لنا وحويان بروتستانت واحد كشكيان إنكم ودك إنجليزي يكونوا جيبه واحد كشكيان قفك بروتستانك الدونك كعنت كل جاي إلهي نرميسا هذا هو الناجح بين هذا أنا كم مركب محل النهي وحنوبها النهي الفائز فأولئك هم الفائزون هم المفلحون أوكي قيس كانوا صورة عنا فكرة داس قيس مركب وأفر وحنكسر بلا بينا هوس كرة نص عنا يا شيخ مارة جوار صحوي هوس ما كسر كوا نلش كنا عاي ما كبلا بينا قيس كنا نلش كنا عاي إلا قيس كنا نلش كل لبناني أوكي قيس كوباد وحويان نلش كنا عاي وقيس كانوا بحنه وأسرة غير سعيدة غير ناجحة غير ناجح الله بدي ويكون عاد سعيدين معها أقل كوهب بكم النولو ما فرح سنة ما قصلان اسم جعله نلش مارتي هبي معها أوكي وحي هبي أوكي نبى كم بقى ذكري صلاتي قرآنكي الله كحرشه جعيرك يسكت جعلاين هديره يسكت كينيين وحي نبى كم بقى نجاحي لو كم بقى مش قيستان نلش كذاتين سكول من نجحان مارت وحما قبطان والزلفة فرديان ويش داودان عيد يكونوا لي بس إذن هؤلاء نسميهم محاكو سؤالي وأسرة غير سعيدة غير ناجحة حبسة تغيان سكولة كتاعدانيان واتاسوات كوبادوي في أفريقيا ويكجران في الغرب ويكجران أسرة الله بعد قولها إن يركسر رئيس ومحي وسعيدة غير ناجحة وأسرة هب يكون نور بو فرعسين مسكيت كيسكو راعان جمعة هاي تغان تراويح تكدان قرآن كي أخريان ويسو سيارتان ويسكو ورحيان لكن وناجحين ما من الناس كل كبردك تعيالك لبدا والدنا من هرمان ما قالوا ماشي بالستر فرديا وحال سكنوا لي محانكو إلى هذا ان قرقارك الدولة ده أفريقيا وحال يقولوا لي قرقارك طلقة إلا تلقي بالدولة دي صح وريرك الشيخ وما انت بهي روح صوري ولا صوري يا مكت ريرك مركا وعقليات يعني العب على الناس صلوما صح اوكي
taasi wuxuu in yar ka sarreeyaa un ya kii hoose kii saddexaad qaybta saddexaad waxa weeyaan waa cagsigii tan waa naajixa gayra saciida waa usrad najaxday ru'isiya guulaysatay iskoolla ka wada baxday lacag badan haysata guryo dhisatay laakiin habbi maaha dagaal baa ka dhexeeya habeenkii aqalka waxaa ka dhaca maaragtay dagaalkii qaboobaaye maraykanka iyo ruushka u dhexeeyey laislama hadlo haddii laisla hadleen waxaa laiskula hadlaa luqad wada hanjabaada tawatur baa jira cilaaqaadku waa mutawatir dadku waa xisaab bay ku wada joogaan lacagtii xalay ku dhiibay meeshaad geysay ma garanayo waxa u dirtay waalidkaagii intaa ani waalidkaygii ma dirin weli waa maxay lacagtaageed geysay waxaa lagu xisaabtamaa luqatun gayra xub okay marka qoladaasina waa qolada saddexaad qolada afaraad waxa weeyaan waa usratun saciidatun naajixatun usratun saciidatun naajixatun waa usrad maxaa idhe habya isla markaana naajixada usraddaasi waa maxay markaasi waa usradda afar arrimood isla fahamta weyn waan soo koobaya si ay taxadiyaadkii aad inoo sheegtay uga hortagto kow waxay isla fahmaan alahdaaf waxay ka jawaabaan lima hada albayt gurigan maxaan u samaynay aqalkan maxaan u samaynay reerkan muxuu ka shaqaynayaa su-aashaabay jawaab u hayaan okay marka waxaa jira waxa dhahdo altafaahum fi alahdaaf ujeedooyinkaa la isla fahansan yahay arrinta labaad ee reerkaa isla fahansan yahay waa maxay waxaa la isla fahansan yahay altafaahum fi aladwaar qof walba dowr buu leeyahay aabbuhu dowr buu leeyahay dowrulmushrif baa dhadaa marka qofka shaqo loo dhiibo aabbuhu ishraaf buu sameeyaa dushuu aqalka jooga tafaasiisha nolosha ma galo ilmaha intuu aqalka ugu gala ma idhaahdo maaragtay waxaan baa ka arkay lacagtii haga geysay farankan haga geysay maxaad haysaa doolarkii islaanta ma haysaa waxa ma galo laakiin dushuu ka ilaaliyaa khaladadu ilaaliyaa wanaagyadu amraa dushuu kala socdaa wax badan buu is-ilowsiiyaa tagaabi baa dhadaa watagaaful waa wax fiican in la isdoqnaysiiyo ciyaalkaaga la isku soo taago kokol doqon baa laska dhigaa waxba la socon adoo wax iska arkaya markaas taasi waa muhiim dowr buu aabuu leeyahay hooyadu dowr bay leedahay ubadkuna dowr bay leeyahay nin walba inuu dowrkiisa garto waxaa dhadaa tafaahum waa laisla fahansan yahayna layskuma qorqoro sida maaha wasaaradaha ani shaqadeedu intaa maaha laakiin waa laisla fahmaa waa tafaahum dowrkaygaanu ka soo baxayaa intaa buu ani aabbahay iga baahan yahay waan fahamsanahay anu inankayga intaa uga baahan inasa intaa waan uga baahanahay hooy islaanta intaa uga baahanahay hooyadaydii dhasho anigoo weyn waxbay iga baahan tahay iyadna waxaan uga baahanahay waa dowlad noloshu okay ta saddexaad in la isla fahmaa waa maxay waa meesha lagu dhinto Soomaali ku dhintaan التفاهم المالي financier waa in la isla fahmo okay التفاهم maxaan bixinay المالي war xoolaha guriga imanaya sideen u isticmaalnaa gurigu waa dowlad waa inuu yeesho budgetka waa in la dejiyo sideen uga hortagna waa in la dhahdo mashaakilka waxa weyn ugu dambeyn waa maxay التفاهم التربوي والجنسي waa inay jirto in la isla fahansan yahay sida wax loo edukeeyo educationka sideen ubadka u barbaarinaa maxaan ka barbaarinaa waa la isla fahmay iyo ta ugu dambaysa waa maxay sexka jinsiga waa meelaha Soomaalidu ay ku jabteen okay oo ay dhaadin maxaa waxa looga sheekeynaya cuuzu billaah bidhaadaano haddana marka ay doonayaan wax ka bartaan waxay wada cashar ka wada qaataan maaragtay googolka iyo tagaani ay weydiiyaan maaragtay casharo badan diintooda inay ka bartaan mar rabaan iyo youtube-ka wixii la mid ah okay intaas markaan ka soo baxo wixii keenaya saacadada waa iyo najaaxu waa taa taxadiyaadkaadii weydiisay walaalkayo ina haysta annaka maxaan kaga baxaynaa Soomaalidu waa inay samaysato 3 project saddexdan project haddii la helo anu waxaan aaminsanahay inay Soomaalidu baxayso project walba waa inay qola xambaaraan ka mashruuc fikri waa in la yeesho Soomaalidu waa inay yeeshaan fikirkaas waa inuu yeesho saddex waa inuu ku taagnaado waa yaro culus ya mashruucani saddex waa inuu ku taagnaado kow waa inuu ku taagnaado diinto la fahmo waa inuu ku taagnaado meesha lagu nool yahay la fahmaano waa inuu ku taagnaado saddexaad mashruuca fikrigii meesha lagu socdo oo la fahmo saddexda mashruuc fikri waa in laga sameeyo oo culimo mufakkiriin ay soo baxaan oo waxa ka shaqeysa laba Soomaalidu waxay u baahan tahay mashruuc usari mashruuc qoyska dhani project buu inooga baahay mashruuc qoysku ma wax laga hadlo oo qoys arnama waa mashaariic marka mashruuci qoyska waa inuu jiro masaajidu waa inay waxa ka hadlaan iskooladu waa inay ka hadlaan culimadu waa inay ka hadlaan aqoonyahanku waa inay ka hadlaan
dad mutakhasisiina waa inay jiraan oo arrintan maaragtay ku qaata shahaadooyin sare master iyo doctoraa ku qaata waxaas mashruuc usari waa in la sameeyo ugu dambeyn waxaan baanahay mashruuc xadaari annaku laba shay baan u baahannahay markaan geeska afrika joogno waxaan u baahannahay inaan samayno xadaarad islaamiya oo soomaaliya oo geeska afrika sare kacda ilbaxnimo waa inaan samayno marka aan joogno yurub iyo maraykan iyo kanadana iyo austraaliyana almushaaraka alxadaariya inaan ka qayb galno civilizationka meesha ka jira waa inaan ka qayb galno mushaaraka waa inaan samayno sidii ay sameeyeen saxaabadii ardulxabasho tagay sidii ay sameeyeen culummadii andalus tagay ee dowladda islaamka ka taagay iyo kuma samaysan dowlad xadaara islaamiya annaku ornaa moogtahay anigu waan ka baxay kelmadda andalus waxaa laga sameeyey xadaara insaaniya laga sameeyey waxaa laga sameeyey civilisation humanitaire bini aadankaa samaystay kristankii deganaa yahuuddii deganayd iyo muslimiintii meesha xakumaysay iyaa isla dhistay sida hindiya oo kale hindiya waxaa laga sameeyey xadaara insaaniya oo maanta handuusku ay ku faaraan ay dhadaan 8 qarniya muslimiintuna xakumayeen xadaaro weyn baa la sameeyey idan waxaan u baahnay maanta dadkeena ingiriiska jooga inaan ahaana maaha dad geerasha ku nool geerasha darafyada fadhiya maaha inaan ka soo kacno darifka oon bartamaha imanno oon mashruuca ka qayb galno socda waddanka ingiriis waa inaan ka aragno soomaali mashruuca xadaariga dhisayo islaama oo miskiidka tagaya oo soomaya waxaasoo dhan intaasi waxay noo keenaysaa taxadiyaadka inaan ka hortagno ugu dambayntii waxaad i weydiisay waalidka maxaa tarbiyadda horta waxaan kuu sheegaya walaalkay sheekh aad baa ugu takhasustaa adigu arrintane anwaacu lwaalidiya kuu sheegaya la alwaalidiya waalidnimadu waa 3 nooc صح الوالدية البيولوجية قفك والدك بيولوجي هانون فيسيكس والدك المها اسلامتك كسو توري واقي سوالده مقرن اما اسلامتك المها وكنت السلام عليكم وحكى لو كدحي مجرو امس عيال الله لح بان له تضبان له كو يتوب بان له واقف نابع عيالك بدن يا مرينا شهوده ابلا بدن بان له اوكي وحاس waxa dhada waa alwaalidiyya البيولوجية اوكي الوالدية الثانية ومحي والوالدية الثقافية ومحي والدية ثقافية ووالد كثقافية تربوية ووالد كإلمها إنه كل جركيس يودي بدونها تربية دي سي إنه سي دونها ووالد كمسؤولية وين درامية ووالد نوع عصنا ونوع الصومالي ده حتى قاركود وبديهن الوالدية الثالثة ومحي الوالدية الإيجابية ويا لبدا هورك أقول هو نيجاتيف كلابادنا هو نيجاتيف حسابا كنيسة ضحادنا ووالد إيجابي وبوزيتيف كني معي والد إيجابي ووالد متفاعلة ووالد المهلا نور المو هدو قاجورة يا درامية هدو درسية هي درامية هدو مرورة يا درامية وديدا يا علمي سوينو مارة نوشة كدعو كسو علينا لا تهلنا لا تشنيا وحفهميا لؤويا لا فرحيا لا بحيا لا شهعبيا مارتي قرب كزوجو سكورنيا ودياريا نولش وديارنيا كعبسينين oo ka dhahayn baritool waxa ku sugaya wax weyn laakiin waad ka bixi kartaa nin baa tahay gabadh baa tahay imaartay inan baa tahay hooyan ku diyaarinaya hooyo wanaagsan oo saalixada mujtamac wax u tartaa cilmi yeelata horumar gaadha aabaad noqon doontaa saalixa mujtamac anfaca waxaas oo dhan waa inaan waalid waa inaad noqotid positive oo aad noqon waalid thaqaafi una naqalkii baa halaysay af Soomaaliga ma garanaysid ilmiga cabsi baa gelinaba maaratay English baad ku hadlaysaa French baad ku hadlaysaa maaratay afkaagii hooyawad ilowday waxaan badan maqlaa diintaadii waad ka baxday salaadii ma tukan quraankii ma akhrin ilaahay kama cabsoonaysid ilmiga cabsi baa kale laakiin adoona kaleyn salaadii ma tukan salaadaadii aan tukanno salaadii way gaadhay aqalka jubiir salaada hal lagu fahmo miskiidka la isku raaco waqtiga marka la isku helo maaratay quraanka la isla akhriyo marka waqti la isku helo hal la isfahansiyo yani wax quraanka ha ka dhigi wax aad leedahay ilmaha siinaysid diinta wax aad leedahay ilmaha siinaysid ha ka dhigina wax aad u baahan tahay ka dhig diinta oo isna u baahan yahay لأن إلهي بسود جدينته لبدينا بين نجاب حسن إلهي هو مجرد إلهي أديك كماها أدوها مثل دورك إلهي سبحانه وتعالى لكن واحد متجاهل دورك متلقي عن الله إلهي هنا دينتك سوق قادسين فهم يسين وقرانك لكل ميسين يسقون إنه دورك عياره وقشك أنا عيالك وحنا قشك يا مرك أنا دينت فهمي إن اللي يرانا بس هو مري ومارت النشأ كدعي جاري لكن دينته ببدسين أو مع علماء أنهري مرك أنا بدبادي أنا سهري مرك أنا سهرينا أنا هرمر جاري هرمر كان أركيس أبهاينو الشيخ نقضه وعالم نقضه ودين تبرته وضد كبره ومدة ونولاده والسياسة قالوا ودقالة قالوا وفكر قالوا وحاوك يعني وحوين رسالة دوسيو رسالة ده مركا إلى فهم يعني مركا أبو المها جينا كل فهمي وكل قاضي مركا الوالدية الإيجابية
waxaan u baranaa inaan ku dheeraaday su-aashaadii laanno su-aal waxay ahayd meesha maaragtay nin tababaraa ka imatay amaasan tahay جزاك الله خيرا شيخ ما أملينا إن هالحلقة يلا يطون ماركتي طبعا علمي قاعد لقد قربيو إن شاء الله تعالى وحربي ولا لها إن أشيغو إن شاء الله تعالى إن أم بالله بدونه كورسو بشان دحدي ذا أونلاين إن شاء الله تعالى أي دعي كرتو هديو إبا إدمو شيخ اللفتقي سئنا الهلو شيخ waxaan insha Allah ta'ala siinayaa anigoo aad uga taxadiraya waqtigaaga in aad dhaqaaqdo insha Allah ta'ala 15 daqiiqo walaalaha cidii na soo wici karta ee u baahnayd okay in su'aal ay ka faa'iideystaan fursadan aadka u qiimaha badan leh ayaan rabaa in aan siiyo insha